HORDHAC Liverpool vs Arsenal wax walba aad ugu baahan tahay kulankan ugu adag ee isbuucan ayaan diiradda saari doonaa muuqaalkan fadlan haddii ciyaaraha jeceshahay waxaan ka codsanaa muuqaalkan in like noo saarto subscribe noo saaro si joogto hesho warbixinadeena taxanaha ay ku saabsan ciyaaraha iyo falanqeyntooda oo dhameystiran maanta waxaad waa Super Sunday marka waxaan falanqeyn doonaa ciyaarta Arsenal iyo Liverpool meelaha ay kala badin karaan iyo waxyaabaha lagu ogaan karo isla kulankan HORDHAC Liverpool vs Arsenal wax walba oo aad ugu baahan tahay kulankan maanta Liverpool vs Arsenal tartanka waa Premier League waqtigeedan waa 12 iyo 30 daqiiqo galabnimo 12 bar oo galabnimo ee Geeska Afrika garoonkan waa Anfield labadan kooxood ayaa xilli ciyaareedkan ku bilowday si xoog leh iyadoo wada guuleystay labada kulan ee ugu horeeyay taasoo ka dhigaysa kulan mid go'aamin kara cidda sii wadan doonto hogaanka horyaalka macnaha labadan kooxood waxaa lagu xaqiijin doonaa ciyaarta ninkii badiyo inuu hogaanka u hari doono inkastoo ciyaar xilli hore ee bilaab ay tahay oo wili oo saadaashii la saaray laakiin rajadiisa ay fiicnaan doonto xaqiiqooyinka kulankan haddii aan wax ka eegno Liverpool wax guul ah kama aysan gaarin Arsenal lixdii kulan ee ugu dambeeyay Premier League ee la ciyaareen Arsenal afar dharo baraajo ay galeen laba lose tan waa guuldarro la'aantii ugu horeeyay ugu darneed ee ka dhan Reds tan iyo intii u dhaxaysay 2007 ilaa 2011 saddexdii kulan ee ugu dambeysay Anfield lagu ciyaaray labadan kooxood barbar ayay galeen ay kala baxeen si kastaba haatee Arsenal ma aysan guuleysan 12 kulan ay soo boqdeen Anfield Arsenal waana sidar 12 kulan u dambeeyay ay soo boqdeen Anfield waa 5 draw iyo 7 lose oo laga badi tan iyo guushii ay ka gaareen 2-0 ee September 2012 markaas uu Mikel Arteta ahay ciyaaryahan Arsenal ay kabtanka u ahay Arsenal xilligaas kaliya kulanka Liverpool oo iyo Spurs 206 gool ayaa la iska dhaliyay laakiin balse kulamada Liverpool iyo Arsenal waxaa la iska dhaliyay 198 gool tan iyo xilli ciyaareedkii 2015 ilaa hadda waa tan waa goolasha ugu badan la iska dhaliyo Premier League 78 gool 20 kulan Arsenal Liverpool isla wada kulmeen 78 gool ayaa iska dhaliyeen waa markii ugu horeysay ee Liverpool iyo Arsenal ay ku kulmaan iyadoo labada kulamo ee koowaad iyo labaad ku soo dhameysteen xilli ciyaareedkii hore tan iyo 2017 iyo 2018 markaas oo ay Chelsea 2-1 ku garaacday kooxda Spurs kulankan wuxuu noqonayaa dagaal adag oo u dhaxeeya labadan kooxood oo si fiican u diyaarsan halka Anfield markale noqon doono goob go'aamisa mustaqbalka horyaalka xilli ciyaareedkan oo bilaawi sidoo kale waxaan eegi doonaa 3 meelood ilaa 4 meelood ee ku kala badin karaan labadan kooxood haddii aan eegno shaxda isku dhaafka ee labada kooxood taan fiirin doona haddii fursad aan helno sidoo kale waxaan eegi doonaa meelaha go'aamin doono waxaa la jiray inay guul ka gaaraan labada kooxood xitaa waan eegi doonaa muuqaalka sidoo kale waxaan eegi doonaa waxyaabo badan oo isaga ku saabsan isla muuqaalkan ayaan ku falanqeyn doonaa hadduu idmo sidoo kale Liverpool garoonkeeda Anfield maadaama lagu ciyaaray Liverpool waxay rabtaa inay diiradda saarto inay ciyaartan badiso si ay horyaalka ay rajadooda hore u sii socdaan haddaan aynu saddexda qodob Liverpool iyo Arsenal saddexda meel ee go'aamin kara kulankan garoonka Anfield ayaa habeenkan martigelin doona kulan culus oo u dhaxeeya doono Liverpool iyo Arsenal iyadoo labada kooxoodba ay doonayaan inay sii wataan guulahooda maadaama ay doonayaan guushooda saddexaad oo xiriir oo maadaama xilli hore tahay horyaalka falanqeynta ciyaarta Taroza iyo Tuneti macnaha meesha kuwada kulmada waxa waaye waxaa la jiray Yodras iyo Tuneti istaraatiijiga cusub ee Arsenal
ayaa Anfield imaanaya isagoo u faraxsan kadib laba gool uu ka dhaliyay Tulantii Leeds United toddobaadkii hore. Weeraryahanka reer Sweden wuxuu muujiyay awood jiheed iyo farsamo isku dhafan taasoo ka dhigaysa inuu noqdo halis weyn ku ah Liverpool. Waxaan sugeynaa Ibrahim Konate daafaca dhexe ee xoogga badan ee Liverpool si uu u xakameeyo Uterus. Konate waa inuu si fiican ula socdaa dhaqdhaqaaqiisa gaar ahaan marka Uterus uu isku dayo inuu ka faa'iideysto boosaska ay ka daafacyada garbaha sare ee u kaca fullbacks ka taagan. Kulankan wuxuu noqon doonaa imtixaan dhab ah oo ku dhisan xoog iyo xawaare. Liverpool ayaa awoodi weysay inay joojiso Saminyo habeenkii furitaanka taasoo shaki gelisay adeegsiga difaaca Liverpool. Arsenal waxay u badan tahay inay bartilmaamsadaan garbaha uu difaacyada Gerges taas oo ay aad u jiiftay labadii kulan ee ciyaareen wuxuuna aad ugu leeytay difaacashada kubada hawada sare. Waxaa kaloo la ogsan yahay inuu ku liito weerarka. Su'aasha ugu weyn xagee ayuu Ebrezi Eze ka ciyaari doonaa. Arsenal waxay si tartiib ah uga guureysaa qaabka 4-3-3 iyadoo u bedelaysa 4-2-3-1 ciyaareedkan. Hadduu Martin Odegaard tam noqonin waxaa booska bartamaanaad lagu bilaabi doonaa Eze halka Gabriel Martinelli uu si ahaan doono garabka bidix. Eze wuxuu si fiican ula qabsan karaa boosaska marka Arsenal haysato kubadaha balse waxa uu u baahnaan doonaa inuu la qabsado cadaadista degdega ah ee Giants taasoo xoog badan midkii ku bartay Crystal Palace. Waa kulan la filayo inuu noqdo mid dagaal badan iyadoo labada kooxood doonayaan inay muujiyaan awoodooda tartanka horyaalka maadaama ay koox walba ay rajeynayso inay horyaalka guuleysto. Halka Mohamed Salah uu u saadaaliyay Arsenal inay horyaalka sanadkan qaadayso maadaama uu sheegay Arsenal inay ciyaartooy dhameystiran ay haysato maadaama ciyaaryahanada ay soo iibsadeen ay ku yaryihiin. Halka Liverpool iyo kooxaha kale ciyaaryahano fara badan ka tagay iyo haddana ciyaaryahan ay soo iibsadeen isla qabsigooda intaas ayay ka faa'iideysan kartaa Arsenal. Sidaas ayuu sheegay Mohamed Salah. Waan arki doonaa wixii soo baxay ciyaartan falanqeynteeda dhameystiran muuqaalka la ayaan dhawaasano.